السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kulanti labada wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada meel walbaad joogtaan caafimaad qab iyo nabad qab baan idin rajeynaya waxaanu ka hadlaynaa qiso aad iyo aad u cajiib ah oo dareen aad u xanuun badan xambaarsan qisadaasi waxay ka hadlaysaa arrimaha ku saabsan dee wax ka mid ah danaysiga iyo abaaldhaca iyo xaasidnimada waxaan ka wadaa qof abaal kuu galay ood ku abaaldhacdo qisadan waxay ku dhacday gabadh Soomaaliyeed magaceega waxaanu bixinaynaa Sahra gabadha Soomaaliyeed in magaceega Sahra u bixinay waxay ahayd dadkii Soomaaliyeed ee qurbaha aaday markii waqtiga waddanka uu qaxu ka dhacay Soomaaliya dowladda dhexe burburtay kadib dadkii ay u suurto gashay inay baxaan ee qurbaha galaan ayay Sahra ka mid ahayd gabadhaas markii qurbaha tagtay waxay noqotay gabadh karti badan oo shaqaysa oo aad u dadaasha oo nolosha ka mid dhicin dadku laba u qaybsamaan qurbaha oo qaarna nolosha dhalaalka ah ee wax kasta iska firiga yihiin qofku macaasi ku dhici kara ee nolosha ka dhici karo ayay ku daandaamaan iyo dhalaalka iyo fursadaha markay arkaan qaar nolosha ka dhacaan qaarna way faa'iidaystaan oo dadkii ka dambeeyay Afrika kaga yimaadeen waxbay u taraan gabadhan markaa waxay noqotay gabadh fikirta oo shaqaysata oo reerkoodii iyo familkoodii ka dambeeyay ee noloshii burburka ahayd ay kaga timid wax ku soo celisay oo aad u shaqaysata sidii ay nolosha ugu jirtay ee u shaqaysan jirtay ee waalidkeedu caawin jirtay markii dambe waxay isbarteen wiil Soomaaliyeed oo waddankii jooga waxay iska barteen aaladda la yiraahdo Facebook wiilkii way wada sheekaysteen waxay ku heshiiyeen inay isguursadaan way isguursadeen gabadh wax iska haysato oo shaqaysatay ahayd waa u xiraysay VC ba u xiraysay way soo qaatay waddankii marka ay joogtay ayaa keentay marka gabadhan Sahra waa gabadh shaqaysata oo active ah oo dhaqaale samaysa waxayna dabeecad u leedahay wax kaydsiga inay wax urursato oo xoolihiga ay dhaqaalaysato gabadh leh jecel leh oo wax urursato oo wax meel dhigato oo wixii soo gala dabka aan ku shubinay wax meel ka dhigata ay ahayd waana dhaqan aad u fiican oo qofkii Ilaahay siiya awdi horta horumar fiican ku gaadhay gabadhaasi maadaama gabadh wax iska haysata ahayd markii ninkii waddankeeda ay joogtay ay keentay lacag bay soo qaaday isku ururisay habaysay gaadhi bay u iibisay ninkii wuxuu galay imtixaan buu maray koorsuu qaatay liisankii baa la siiyey taraag dareefar buu noqday gaadhigiina iyadaa u iibisay marka maasha allah ninkii uu shaqayn jiray gobolladuu kala bixi jiray mar walba iska warhayn jireen way wada hadli jireen aad bay isku jeclaayeen mar walba halkuu marayo xaaladdiisa caafimaadkiisa ay ka wareysan jirtay isna waa la hadli jiray dhaqaalahoogii baa koray siday saa u ahaayeen qof baa u dhashay ilma u dhashay iyagoo xaaladda ku sugan oo mar walba telefoon ka wacda uu ka qabanayay halkuu marayo xaaladdiisa siduu yahay isna sidoo kale uu soo wici jiray dhaqaalahoogii kor buu kacay iyagoo xaaladda ku jirta baan nidhi ilmihii koowaad baa u dhashay marka iyagoo sida ku jiro xaaladooda sida ku jirto ayay gabadhii waxay iibisay gaadhi labaad gaadhigii labaadna cid kale loo dhiibay oo uu u shaqaynayay siday xaaladdu ahayd in labadii gaadhi u shaqaynayaan iyadii isaga isku fiican yihiin nolol maasha allah alxamdulilah ay ku jiraan ayaa waxaa dhacday ninkii gaabis ayaa ku yimid inuu gaabsado lambarkii qaban waayo marmar lambarkii au mataqaanaayay ku soo celin waayo mar dambe uu ka qabto aduu isbedelay gaabis baa ku yimid waxbaa bedelay waxa bedelay muxuu yahay gabadhii way ku wareertay war maxaa ku hel waxba mar dambe uu soo jawaabaa waxba ima helin waan waxyaabaha qofku markuu meel kale ku jahaysan yahay amba au cid kale soo dhex gashay shaashadda ee lagu yaqaanaa inuu gaabsado
dib isku dhigo lambarka ka qaban waayo waxyaabahaasaa qofka ku yimaada isbeddel baa yimid gabadhii maadaama qofku ku jiro taraag uu galaayo way welweli jirtay welwel talow xaaladiisu maxay noqotay siduu yahay bal xaaladiisa ka wardoon isna telefoonka ma qabanayaba ileen waqtigan awiyada gelin jiray ee iminka uu ka jaray gabadh kale u geliyaaba oo gabadh kale ay isbarteen oo waddanka joogta oo gobolladan ku shaqeeya ee xamuulka geeya mid ka mid a joogta gabadhaas ula sheekaystaaba oo xiriir iskala leeyahay iyo waqtigeeda loogu talagalayba gabadhaasuu siiyaa war ninkii muddo waxay mataqaanaa iska daba jiitamaane lambarka ka qaban waayaba markuu awal waxay ahayd usbuuciiba mar la hadli jiray usbuucii iyo bar haddana ayuu haddana waxba ka qaban waayey bil kadib buu haddana usoo jawaabi jiray 2 bilood ayuu markii dambe inuu xataa gurigu yimaado buu diiday markii hore lambarka uu ka qaban jiray usbuucii mar buu xaafadda iman jiray uu kordhiyay hawshii 2 usbuuc mar bil arrintii bil wadhaafta 2 bilood maalinkii dambe ayay ku tiri dee arrinkani waa sidii maxaa dhacay maxaa reerka ka uga tagtay lambarka maxaad u qaban laadahay maxaad naga wareerinaysaa buuri lambarkayga maxaa kaa galay maxaad ku barna soo garaacanaysa hana soo garaacin maxaa kaasaad maraysaa miyaanan xaaskaaga hayno nolol inaga dhexaynoo aanan ubad isku hayno marka xaaladdaasi ay maraysana ilmihii labaadna way dhashay kii saddexaadna uur bay ku sideen marka ninkaasi xaaladda jahwareerka uu ku riday gabadha subuuq baa ku dhacayoo way fikirtay waayo ninkan abaal bay u gashay waddankii bay ka soo qaaday hantideedii oo dhan bay gacantii u gelisay waxay hayso dhan bay ku qarash garaysay isna muxuu ku noqday qof xun mase ninkii korsaduu cunaa baa lidhi inuu yada dib ugu soo kala jeediyo oo uu ku noqdo qof xun oo xagga kaga soo kala jeediyo ayuu ku noqday gabadhii waxaa dhacday in ay ku tiri walaal maxaa isbedelay maxaa dhacay sidee waxu jiraan naahna wareerin waad buuq badan tahay adu gabadhii nin dee meelo caddahay meel ka madoowey gabadhii uu ku gacan sayday kadib waxaa dhacday in gabadhii markay xaaladii aragtay inay faraha ka baxsan tahay ay dee ninkii dacweysay oo tiri ninkaa laga qabto ninkii markii loo yeedhay hantida wixii hantiya markii hore isagay ku qortay gaadhigana isagaa ku qoran gaadhiga labaadna naagtii buu ku qoray oo la sheegaysanayay marka iyada marka waxba faraa uguma jiraan qoladii dowladdii markaas la iskula tegey ee dee maxkamadda isla galayna dee gabadha ninkan waxaad ku haystaa ma jirto oo aad leedahay baa lagu yidhi barta ka baxoo nabadgeli gabadhii isku buuq iyo wareer baa ku dhacay marka iyadu jacayl ay jeclayd iyo waa ninkaaga islahayd oy aamintay ayay saa u samaysay aaminaadda noocaas oo kale inta badan dee ee indhabaalki horta way yara dhib badan tahay oo aday marka dambe dhib ku keenaysa habase ahaatee soomaalida waxaa ku mahmaadaa khiyaanoole ma libaano ma boolana hadimaha qodin hataa qodina ha dheereen qof abaal kuu galay weligaa ha ku abaaldhicin haddii adduunka lagaaga jiri waayo aakhiro ayay ka go'antay gabadhii waxay tiri waan wareeray waxaan markii dambe ka baqay bay tiri in ilmahaba layga qaato marka xaaladdeeda la arko anoo dee waa shay oo isku buuqay marka la arko in la yidhahdo gabadhan ilmo ma haysan kartee ha laga wareejiyan la yidhahdo aan ka baqay tiri marka waan isdejiyey ilaahay baan mataqaanaa beriyey quraan baan isa saaray laigu akhriyey dad qaraabadii yimaadeen igu akhriyeen ilaahay baan subxaana watacaala beriyey oo ilaaho isug baan idhi arrintii tol baa soo dhex galay isagii waa loo yeedhay ana waa la ii yeedhay ninkii waxay igu waray ahay arrinkan dee caqli maaha waxaa aad samaynaysa caqli maaha war gabadhan abaal bay kugu leedahay adoo faramaran oo cagaagan baad waddanka timid xoolahaad leedahay anaale aad leedahay adu ma lihid xoolaheygii inaad maanta dee dulmido oo saa u gasho lagaa yeeli maayo
gabadha xoolaha wax ka sii waxeegi wax ka sii dee dad maanta diinta anaa leedahay diidintu laga karinba wuxuuna celi gabadha xoolaheega marka hore uu diido waa la kari waayo marka dambe wuxuu yihi gaadhi baan u celinayaa gaadhigii hore oo duugoobay oo dee in badan socday ayay tiri waa la soo celiyey kii baa la soo celiyey lacagtii iyo gaadhigii dambana isagaas ku qaatay marka qisadaasi dhalinyaro iyo gabadha waxaan ka faa'iidaysanaynaa inta badan dadka dibadda loo qaado ee guur lagu qaadayo niyoo lisma fahmo inta badan qaar badan danaysi bay u socdaan ama wiilka ha ahaato ama gabadha ha ahaato waxaa dhacda qof inuu qurbaha uun taga doonayo mar uun inuu tago oo guurkaba u jeedin baa jira oo hadhow markuu qurbaha halkuu doonaya uu gaadho isbetelaya oo ileen qofka guurku daacad kama hayni inuu meesha kugu yimaado ma doonaya in badan bayna dhacday qisooyinka noocaas oo kale in gabdho badan oo kharash badan ka baxay oo raggii dhaqaaleeyey rag ku abaal fureen iyo rag badan oo hablo saa ku sameeyeen marka labada dhanba way jirtaa laakiin waxaa loo baahan yahay qofku horta ilaahay baa cadde caalamul ghayba oo qofka kuma dhex jirtid laakiin waxaa wanaagsan inaad xoolahaaga iyo sirahaaga iyo dhaqaalahaaga inta badan dadka aanad u wada furfurin qof kastana inaad iska aamin tahay horta way dhib badan tahay waqtigan la joogo la sabaan aakhirka dadka dee lama aamini karo marka waxaan ka qaadanaynaa qisadaas in kalsoonida dadkaas ku qabto boqolkiiba boqol aanay noqon waayo soomaalida maxay ku maamaadaan dad iyo duurba waxaan filin baa kaga soo baxa marka qisadaa sahara intaasaan kusoo gabagabeynaynaa waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu